Sheekada labaad, dembiga oo adduunka soo galay. Aadan iyo Xaawo waxay si farxadi ku jirta ugu noolaayeen beer uu Ilaah u sameeyey iyaga. Midkoodna Maryama uusan qabin, laakiin iyagu ma aysan dareemayn qaawnaantooda, waayo ma jirin wax dembiya oo adduunka dhexdeeda ahaay. Markasta iyagu Ilaah ayay la sheekaysan jireen si toos ah, waxayna dhex socon jireen beerta. Laakiin beerta waxaa dhex joogay abeesa xun. Waxay abeesadii ku tiri Xaawooy, runtii miyuu Ilaah kugu yidhi ha cunin midhaha geedaha ku yaalla beerta dhexdeeda? Markaas ayay u jawaabtay oo waxay tidhi, Ilaah wuxuu noo sheegay inaan cunno dhirta beerta ku taalla oo dhan, marka laga reebo geedka aqoonta fiican iyo xumaha oo ah geedka dembiga. Wuxuuna Ilaah nagu dhahay, haddii aad cuntaan ama aad taabataan isaga waad dhiman doontaan. Abeesadii ayaa u jawaabtay oo ku tiri, arrinkaasi run ma aha, mana dhiman doontaan. Ilaah wuu og yahay markaad cuntaan midhahaas inaad isaga awooddiisa oo kale aad yeelan doontaan, kadibna aad fahmi doontaan xumaha iyo wanaagga sidiisa oo kale. Xaawo ayaa aragtay in midhahaasi ay aad u qurux badan yihiin una muuqdaan qaar aad u macaan. Waxay kaloo rabtay inay noqoto mid kala fahanta xumaha iyo wanaagga. Waxay soo guratay midhihii oo ay cuntay, kadibna waxay qayb ka siisay ninkeedii Aadan oo la socday, isna midhihii ayuu cunay. Isla markii ay cuneen, indhahoodii ayaa furmay, waxayna ogaadeen inay qaawan yihiin. Waxay isku dayeen inay jirkooda asturaan oo ay caleenta geedka toshaan kana samaystaan dhar. Aadan iyo Xaawo waxay maqleen shanqartii Ilaah oo ay ka dhex maqleen beerta dhexdeeda. Kadib labadoodii way isqariyeen. Ilaah ayaa la hadlay Aadan oo ku yidhi, xaggeed joogtaa? Aadan ayaa u jawaabay Ilaah oo ku yidhi, waxaa maqlay adigoo beerta dhex socda, kadibna waan cabsaday, maxaa yeelay waan qaawanaa oo waan iska kaa qarinayay. Kadib Ilaah ayaa ku yidhi, yaa kuu sheegay inaad qaawan tahay? Ma waxaad cuntay midhihii aan kugu idhi ha cunin? Aadan ayaa ku jawaab celiyey Ilaah oo ku yidhi, gabadhan oo adiga isiiday ayaa midhaha isiisay. Kadib Ilaah ayaa gabadhii la hadlay kuna yidhi, maxaad samaysay? Gabadhii ayaa u jawaabtay Ilaah waxayna ku tidhi, abeesadii ayaa i khiyaantay. Ilaah ayaa abeesadii ku yidhi, waan ku habaaray, boggaaga ayaad ku socon doontaa, wasakhdana waad cuni doontaa. Adiga iyo gabadha waad isnici doontaan, ciyaalkiinnuna way isnici doonaan sidoo kale. Naagta faraceeda ayaa madaxa ka burburin doona, adiguna ciribtiisaad burburin doontaa. Ilaah wuxuu ku yidhi gabadhii, markaad dhalayso ayaan xanuunkaaga dhigi doonaa, inuu ninkaaga ku xukumo oo uu kuu taliyo ayaan kaa dhigi doonaa. Ilaah wuxuu ninkii ku yidhi, warka naagtaada ayaad dhegaysatay, anigana waad i adeeci weyday. Hadda dhulka waan inkaaray, aad ayaad ugu baahnaan doontaa inaad dhulka uga shaqaysato oo aad cunto kala soo baxdo, kadibna waad dhiman doontaa oo jirkaaga dhulka ayuu ku laaban doonaa. Kadib ninkii wuxuu u bixiyey naagtiisii Xaawo oo macnaheedu yahay nolol bixiso, waayo waxay noqon doontaa hooyada dadka oo dhan. Kadib Ilaah dhar ayuu u geliyey uu uga sameeyey maqaarka xoolaha. Ilaah wuxuu ku yidhi, iminka laga bilaabo bini'aadanku waxay noqdeen innagoo kale, waayo waxay kala garanayaan xumaha iyo wanaagga. Waa in aan loo oggolaan inay cunaan geedka nolosha ee lagu noolaado weligiis. Kadib Ilaah beertii wuu ka soo saaray Aadan iyo Xaawo. Ilaah wuxuu beerta dhigay malaa'ig aad u quwad badan si aan beerta loo soo gelin loona cunin geedka nolosha.